sixirka guurka waxaan kula wadaagayaa calaamadaha lagu garto in guurka laga haysto. waxaan kula wadaagayaa calaamadaha lagu garto inuu ku haysto sixirka loo yaqaan sixru tacdiil oo ah sixirka lagu naafeeyo ama qofka lagu waxyeeleeyo dhanka mustaqbalka iyo guurka. haddaad guurkii nacday, haddaad guurkii aanad u haysaninba, guurku waxa weeye inuu yahay wax aad u baahan tahay, rag iyo dumarba waxaad ku xidhan tahay ama waxaa lagugu xidhay sixir, waliba sixirka loo yaqaano sixirka guurka lagu xidhan. calaamadahan intaanan sheegin waxaan kaa codsanayaa hadday tahay marka koowaad na soo booqatid in aad like saartid muuqaalka, sidoo kale na soo follow garaysid. haddaad u baahan tahay quraan saaro ama aad la cadilan tahay xanuunada ruuxiga sida sixirka, isha, jinka, muslimiinta, waxaad nalaga soo xiriiri kartaa nambarka +25263423704. calaamaduhu waa calaamadahan aan sheegi doono, waa 10 calaamadood iyo markaasi 2 dheeraada. calaamada koowaad aad ku garan kartid in guurkii lagaa haysto ama guurkii lagaa sixiray waxa weeyaan kow cadho fara badan. waxyaabo yaro easy ah oo iska maalayacni ah oo waxba ahayn baad ka cadhoonaysaa, especially markaad qof la hadlaysid, qof markaad shukaansanaysid, qof marka uu xiriirida kala dhaxeeya aad markaasi hawshiina guurku markuu soo dhawaado ayaad cadhoonaysaa. cadho fara badan. 2 cabsi fara badan, inaad qof walba ka cabsatid, ama kugu xumaadaa, ama nin xun noqdaa, ama gabadh xun noqotaa, ama kada cabsi baaba kugu abuuran gebigaagabo. waxaas leedahay uun malaha uu soo socdaa qofkaagiyo iska sug. qof kastaba baloog baad saaraysaa iyo macaadhilid wada socdaa. calaamada saddexaad waa go'aankaagu go'aan ma lihid, bilaa go'aan baad tahay. qof baad odhanaysaa xiriir la samayso, waxaad odhanaysaa waad ku kalsoon tahay, haddana wax go'aan laydhaa iyo kalsooniya ma lihid, oo qofka aad shukaansatidba waxa weeyaan waad ka boodaysaa. calaamada afraad waxa weeyaan miisaankaaga hoos u dhacaya, marna miisaankaaga kordhaya. kullamaa mar kasta oo ama fikirtid ama walwalku kugu farabato ama cabsida iyo cadhada aan soo sheegna kugu farabataan, miisaankaagu kordhaya ama miisaankaagu hoos buu dhacaya. calaamada shanaad diiqad fara badan, mar walba inta laabtaadu waa cidhiidhi. waad ogtahay inay wax kaa maqan yihiin, inaad guur u baahantay waad ogtahay, haddana derbi weyn baa kaa hortaagan. kaasaa markaa sababaya inaad diiq fara badan aad geshid. marka waa calaamad ka mid a calaamadaha markaasi in guurka lagaa haysto, inaad diiq fara badan aad dareentid, laabtaadu ay waasic noqon weydo. calaamada 6aad ceejeen xilliga hurdada, inaad hurdo fiican seexan weydid oo lagu ceejiyo, oo cunaha lagu qabto, oo naqasku kugu dhago, iyadana waa calaamad ka mid a calaamadaha markaasi sixirka guurka lagu haysto. calaamada 7aad waxa weeye riyooyin cabsida, inaad ku riyootid dadyow fara badan oo ku cabsi gelinaya, oo markaasi inaad mar walba ku riyootid riyooyin ama qof hore shukaansan jirtay ama qof kale oo aad si iskugu dhacdeen, riyooyin fara badan oo cabsilayna kugu soo noqdaan. calaamada xigta waxa weeyaan markaasi canaan fara badan, inaad adigu iscanaanatid, inaad adigu markaasi tiraahid qof xun baad tahay, dabeecad xun baad leedahay, dadku kuma rabaan, qof kasta uu kaa boodaya, wejiga finan baad ku leedahay, waad fool xun tahay, adigu waxaad ma tihid qofkii loogu talagalay guurka, qofkan kula sheekaysanaya xaqiisa ma gudi kartid, dooqiisa ma tihid qofka, ama inaad adigu tiraahid qofkan ila sheekaysanaya xiriirka la wadaagaya qofkaygii maaha, iguma soo baxayo, qofkan rabay ma aha. inaad adigu mar walba canaan naftaada ah mar walba isku geysatid. calaamada xigta waxa weeyaan dhabar xanuun, inuu dhabarku ku xanuuno ama intaa wareeggu uu ku xanuuno, sidii inaad uur leedahay oo kale, oo markaasi ay wax ku dhex socdaan oo ilaa intaa dhabarka iyo muxuga inta wareeggu uu ku xanuuno. sidoo kalena calool istaag fara badan inaad yeelatid, oo calooshu ku xanuunto, oo caloosha aad ka dareentid xanuun sidii gaastri uu ku hayo oo kale. taasina waa calaamad ka mid a calaamadaha lagu garto in guurka lagaa haysto ama lagu diidan yahay guurka. waxaa soo raacda oo markaasi taa waxa weeyaan 11 aan ka dhigi karnaa calaamadaha 10 aynu soo sheegnay. waxa weeyaan in qofku madaxu xanuuno, madax xanuun fara badan, markastoo guurka lagu soo hadal qaado inuu aad u xanaaqo, inuu jawigiisu isbedelo, waxa weeye madaxu inuu xanuuno, madax xanuunkiisu noqdo madax xanuun ziyaado ah, especially galabtii iyo habeenkii oo kale, inuu qofku madaxu aad u xanuuna. iyaduna waa calaamad ka mid a markaasi calaamadaha lagu garto in guurka laga haysto. ilaahay guurka ha u furo rag iyo dumar, qof kasta oo raba inuu guursado. ilaahay subxaana wa tacaala waxaan u rajeynayaa inta guursatay ee reeradana
in ilaahi subxaana watacaala reerahooga u daadiyo uu odkooga u barakeeyo biidni illahi alkariim. haddaa u baahan tahay quraan saar talooyin ku saabsan calaamadaha aynu soo sheegnay waxaad nagala soo xiriiraysaa nambarkan hore u sheegay insha allah biidni illahi alkariim. adiga naftaada ubadkaaga kulligiin waad quraan saari kartaan, online baad ka soo geli kartaan, waana lagu diiwaan gelinayaa biidni illahi alkariim.